Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala barakaatu. Waxaan isku dayi doonaa inaan waqtigeyga siiyo guud ahaan fursadaha maanta anigoo soo koobi doono eh, wixii fursad ah, wixii kaloo update oo is leeyahay fursad wayna siin kartaana aan isku dayo sida ugu wanaagsan inaan bal idin la wadaago fursadaha iyo qaabkooda. Okay, now these are chatkeena aan isku dayi doono lacagta DXY-da aan ugu hormari doonaa wixii isbedel ah shalay aan ka dhahnay inaan hal iyo laba ka dhahno haddana haddii shalay aad joogtay live-ka well and done sababtoo ah xogtii aan bixinay sidii loogu talagalay inaa ugu faa'iidaystaa rajeyn doona. Shalay waxaan ka dhawaajinay lacagta DXY-da haddii aad live-ka soo daawatay inuu kan 15 million new high uu noo yahay halkan ay liquidity noo taasho fursadeena baygana aan halkaa ka qaadan karno markii loo fiiriyo DXY-da. Okay, haddaba fursaddii sidii aan u analyze garaynay iyo si ka qurux badan oo la mid ah oo conceptiga SMC ah ayaan siday taa uga faa'iidaysanay. Marka haddii loo fiiriyo DXY-da waa currency ma aha waxaa waa index oo loo qiimeeyo lacagta guud ahaan sida ay fursadda ay u bixiso. Okay, hadda waxaan haysanaa another 15 minute kale oo halkan high ah taasoo noo fududaynayso inaa weli 15 minute keena xogtiisa ay tahay fursad jiha upturn ah. So marka haddii 15 minute ko uu yahay mid official high ah 1 hour kan sidaa la socotaan lacagta DXY waxay ahayd mid haysata new high sidii halkan aan shalay kaga dhawaajinay. Marka filashadana DXY-da si cad kalsoonida ugu badan trendiga wuxuu noqon doonaa mid ilaa iyo high-gan aan si fursadda kasii raadsano. Then tani waxaan qabaa officially ilaa new high-gaas in la sii qaadi karo saacadaha nagu soo aadan. Newsyada saameyn lahayn way jiraan laakiin suuqa maysan ku yeelan isla markaa reactive laakiin we have to wait ilaa break of structure-ka laga sameeyo. Soo laabashadan halkan kasii hayso then waxaan sii qabayaa ilaa DXY one more time inay imbalance-da kore ay sii aadi karto maadaama in badan waqtigeeda ugu badan ay ku jirtay level sell ah. So bishan May waxaan is leeyahay kalsoonida way soo ceshan doontaa. So USD haddii loo fiiriyo inagoon DXY-da ka xog qaadanayno haddaba euroda sidaan shalay ka dhawaajinay si lamid ah in 15 minute-keeda uu downtrend yahay laakiin new high-gan uu yahay mid uptrend ah. So 15 minute-ka shalay waxaan wada sugaynay in aan u kaadino ilaa laga soo jeeyo 15 minute high looga si ay yiri nimiyo haddii trendigan aan rabno inaan fursadan qaadano waa inaan sugnaa 15 minute new low downtrend inuu noo bilowdo. So 15 minute new low-gaagi halkaas ayuu ka bilowday taasoo caddaynayso euro USD maanta ilaa xalay Asian session wixii laga soo bilaabo in fursadeeda jihadeeda ay sell ahead oo ilaa ku dhawaad 50 pip ay sell soo aaday. Confirmationka liquidity-gani everything way noo diyaarsanaayeen. Filashadan waxaan ka lahayn in one more time uu suuqan halkan inducement-dan oo Asian session meesha laga leexin doono. As a technically istaraatiijiyadan marka isticmaalaysid dhan walba oo cilmigaaga ah inaad isticmaashid isku day sababtoo haddii ay noqoto inaad trade qaadatid oo lacag samaysid khasaaradaada way fududahay laakiin haddii aad noqoto qof cilmiga sidoo u yaqaan u isticmaalo I hope way fududaanaysaa inaad sidii loogu talagalay suuqan ugu guulaysatid. So taas waxay ahayd inducement si lamid ahna demand zone-ka one more time hadda waxaan moodaa in lagu soo laabtay in asaga xataa lasii jibin karo another inducement kale xataa halkan kusii jirto oo mid kale ayada aanba ka fogeen ayaa halkan taasho sida halkan kaaga muuqato ayada in lagu sii dari doono maadaama 15 minute uu sell yahay. Aniga aragti ahaan waxaan qabaa maadaama waxaa yellow aanan haynin in one more time lagu laaban karo zoonkan kaloo naga sii hooseeya suuqana filashadiis aan waqti u siino maadaama maanta ay talaado tahay arbacyo khamiis maalmo kooban ay nooga dhiman tahay si ay u jihada u cadday laakiin wixii entry concept ku dhisan anihan 15 minute trendiga la jira oo jihadeeda waa sell lacagta euro USD. GBSD ayadana way ka yara waxaa la yidhaahdaa way ka yara duwan tahay ayada officially waa downtrends. Okay, 15 minute new low shalay haynay calaamadan saa la socotaan liquidity-ga shalay ay noo taashay in shiftan la sameeyo waa tii aan sugaynay
sidaan u analyze garaynay si ka qurux badan ay samaysay aragtida guud oo structure-ka ah. So new high aan haynaa halkan, then 15 minute kaagi halkaasaa laga jibiyey, turn 15 minute new low halkan ku haysataa, another low kale ayaa saak lasii raacsiiyey, taasoo marka muujinayso aragtida qaybteeda jihada ugu badan in 15 minute-ka uu trendiga sell yahay. So sidaa awgeed ani ahaan waxaan qabaa marka in GU and Euro USD aan waqtigooda siino ilaa jihada selka aan ku trade gareyno haddii ay noo suurto gasho inaan entry model gaar ka helno. Marka wax entry model ku saabsan oo hadda aan ka qaadan karno sell ama buy ma jiraan. Ani ahaan waxaan qabaa conceptgan ah in zonka lasii aadi karo sida euroda limit ah in ayadana zonkaas sii aadi karto. Aragtida fikirka waa qabaa kan maadaama la imaaday oo dhimaan hore u ahaa waxa macnaa kuma fadhiyo. So waxaan qabaa in one more time haddana lasoo react gareyn karo ilaa iyo haddii selka lasii aada aragno. So hadda correctionkan yar halkan ku jiro ma ka qaadan karnaa wax shuruud entry oo sell ah. Bal 5 minute-ka u dhigano wax entry ku saabsan oo shuruudaheena noo muujinaya miyaalan. So there's no shuruud halkan nooga muuqato. So inaan patience muujinaa aan trade-ka labada lacagood aan ka warsugnaa inay correction fiican naga siiyaan. So USD card ayadana waa trade kaloo shalay tii aan analyze garaynay ahaa haddii aad joogtay live-ka waxaana ka dhawaajiyey inaan u baahannahay one more time in shifteena loo sameeyo maadaama suuqa uu joogo 1 hour demand area tii shalay aan ka dhawaajinay. Trendiga markuu shiftiga sameeyey muusan soo laaban intrigii break of structure uu sii raacsiiyey. So intrigeeni kale wuxuu ahaa scenario 2 oo casharada inta aad kusoo barateen conceptiga ugu muhiimsan unbaa maalin walbana aan ku celceliyaa oo fursadaha live-kana sidaas la mid ah unbaa u dhisnaa. Wax isbedbedel ah conceptiga ku imaanaya ma jirto ilaa cilmigay adiga aa baratay oo inaad patience ku aatid ku dulqaadatid asagoon ku noqdo mid system adiga aad ku shaqaysid. So USD card still high sii wadaa oo obvious ayada trendigeeda uu bacdaa oo trend 1 hour haynay. Correctionkan fursadda keli uu naga siiyey tan ay noqotay oo scenario 2 ah wax culeys ahna hadda kama qabo. Haddii shuruud kaloo entry ah aan rabno inaan helnana waa inaan 1 hour ku deganaa one more time candlekan buy-ga ah socda inuu haddana one more time uu sell noo soo sameeyo kadib aan correctionkaas shuruud entry aga dhisno. Okay, USD card halkaas u gudbaya lacagta KTB hadda hal iyo laba ka yiraahdo. KTB waxaa jiro confusion zaid u badan aragtida ah in jiha cadba aysan lahayn oo inaan u dulqaadan ay tahay. Laakiin shalay waxaan ka dhawaajiyey haddii aad live-ka joogtay aan u kaadino ilaa uu suuqa kasoo jibiyo trendigan high oo internalka high low ku socdo oo 15 minute-ka ilaa laga soo jibiyo. Sidaa way dhacday oo shalay ayaan fikirkaas ka dhiibanay oo waxaa lasoo jibiyay high low weli laakiin boodi dhammaystiran laguma jibin qaab manipulation ahaan. So waa inaan waqti kala siinaa ilaa ay dhinaca uga dhacdo. USDG baa ka yara qurux badan xoogaha qaab ahaan markii loo fiiriyo qaab dhismeedkeeda ayaan isleeyahay sida ugu macquulsan maanta waa ka qaadan karnaa. GU USDJPY saaka London salkana soo daatay I think hal saac dhowr daqiiqo ahayd mise laba saac dhowr I think salkan volume kala soo daatay liquidity ka sameeyay shiftiga right now entry ayuu joogaa. Marka intrigan xogaha wuxuu galay qaab consolidation ah ilaa iyo London ilaa maanta aan waan dul fadhiyay. So consolidationkaas dhinaca inuu uga baxo kadib ani ahaan 1 minute shiftigii oo trendiga aan ku qaadan lahaa confirmationka xitaa halkan waan ka xaqiijiyey oo wax iguma dhinno oo tradekan oo confirm kale aan ka raadinayo. Laakiin hadda waxaa moodaa inay ringin gashay kadibkaasna u baahannahay inay dhinac ugu dhammaato. Marka madax dadkan aan moodgelinayaa. Okay, sorry. Okay, marka caadi ahaanba suuqa jihadiisa inta aniga aan ka qabo iyo aragti intaas iskugu soo biishoonaysa. Laakiin xogaha USDJPY-dan ayaa still waxa ugu baahanahay confirmation haddii ay one more time isku daydo inay kan jibiso maadaama hadda ay buy push garaynayso inay kan sii inaan confirmation ka sugo last high lowga. Okay, so let's see haddii 5 minutes ka u degano oo buuri dhammaystiran ay ku jibin karto mase in haddana one more time
ay gudaha cell u soo aadi karto. New accession la joogaa iyada both way ana waxaan qabaa waa mid bygan sii push gareysa oo ilaa iyo konton bib mise waa mid intrigan qaadanay ilaa 14 bib no respect gareysa oo aan cellka u haysana wax ka dhexeeya ma jirto. So we need patience aan ku sugno tradekan ilaa uu dhinaca uga dhaco. Laakiin qaabka intriga aan ku qaatay wax shuruud ah oo markaa ka dhiman ma jirto. Aanan ahayn inaan sugo tradekan ilaa iyo uu jiha cad uga dhaco. Marka USD JPY waxay ku jirtaa tradeda aan isleeyahay fursad ahaan jiha sell waa loo fiirin karaa. Laakiin waxa badnaa diidayana la mid ah waxaana macquul ah isleeyahay in one more time scenario 2 la booqdo. So aragtidaasna waan qabaa oo lala sinto dhaqaaqii manipulationka sameeyey oo kan ahaa meesha ka soo laabtay in one more time lasii push gareeyo. Fikirkaasna waa fikir aan isleeyahay waa macquul. Laakiin kama hor dhacay waa inaan sugnaa ilaa iyo boodi dhammaystiran ay kan kor ugu jebiso oo 5 minute ah. So haddii ay kaas meesha ka saarto wax keli haraya waxaa waaye in aan ogaan karno inay halkaa booqan karto. So haddii halkaa ay tagtana haddana waa inaan mar kale 1 minute confirmation aan dib usoo dhisnaa aanan tradeka aan iska soo qaadan sell or buy labadaba midkood aan banaanka ka joogno ilaa aan confirmation kale kasoo helno. So candlekan hadda furan ishaar wuxuu ku tusaaya inuu diyaar u yahay inuu one more time entry originalki uu booqdo kadib haddana confirmation kale aan u fiirino. So USD JPY waa mid ila macquulsan ani ahaan maanta haddii aan fursad aan qaadan karay wax shuruudeeda entry modelka ka dhimanna ma jirto aan ahayn inaan tradeka dhanka u dhaca aan sugo simple as that. Marka haddii ay news i saameyn wax kale aan ka hadli karana newsyadu way soo baxeen CBI-ga iyo Fed chairmanka I think wax saas miya ayaa jiro I think tartan ay ka dhigeen laakiin inta hadda soo baxday waa ko CBI-dan monthly-gan iyo yearly-ga laakiin wax effect ah suuqa reactive ah kuma sameyn saameyn kuma lahanin suuq sidiisa caadi iskaga degan yahay. Haddii wax kale ay soo kordhaanna bal waa idin la wadaagi doona. Marka dadka gold trade gareeya idinkana dhowr mar aad igu tiraadeen iyo fiiriya laakiin gold inta ugu dhib badan waxaa waaye isaga has to be much inaad suuqa ka warhaysid waay sababtoo anytime any chances account-kaaga ku khasaarin kara haddaadan ahayn qof risk discipline ah oo lacagaha caadiga ahaa low volume kasta ahaaba ku dhiban laakiin haddana gold hadduu sii aado isagoo lacag raadis leh mase volatility mase lacag samee un ka tahay 100% amisho account-kaaga waa gubaysaa si walba ay ahaataba sababtoo ah waxa kale ugu dhib badan oo qofka la rabo inuu ka adkaado koodoro step by step inuu soo koro qofka mentally laakiin gold saameyn ahaan iyo jiha ahaan ani intaan ka analyze gareyn karo conceptigan same concept isticmaala oo SMC entry model ah oo istaraatiijiyad kale kuma isticmaalo. Hadda halkan idinka tuso one hour time frame-ka jiha ahaan asaga waa sell. Okay. Waxaan ku garan kartaa hay'adooda ugu dambeeyay suuqan halkaasuu ka soo jibiyey then kan wuxuu ku yahay low. Okay. Kan wuxuu ku yahay kan new low ku yahay haddii aad gold rabto inaad fursad ka qaadatid laakiin you have to know pips calculation-ka iyo riskigiisa. So kan marka wuxuu ku ahaa correction oo kor aaday isla asiga 15 minutekiis marka u dhigtid trendiga 15 minute naftirkiisa waxaa moodaa in 1 hour kala jihaya 15 minute high halka ka sameeyay then high low then high isla 15 minuteki isagana waxaa lagu soo sameeyay 15 minute shift. So 15 minute shift-gan wuxuu jaanis kuu siiyey inuu halkan ka abuuro 15 minute new low taasoo marka caddaynaysa 1 hour kaagii yahay inuu new low 15 minute kaagii new low trendiga dhamma jihadiis awood ugu badan inay sell tahay taasi waa soo ogaatay. Correction-ka ugu muhiimsan marka fursad aad ka dhisi kartid waa kan oo kale oo intrigan yar laabanayo correction ahaan isaga 5 minute ula dago then shuruudaha entry model-ka caadi karaas wax dhib ah oo culeys ah kuma jiraan aanan ahayn sida aad cilmiga iyo juhdiga usoo baratay oo lacagaha kale ugu trade garaysid ba asaga loogu trade garan kartaa. So kan liquidity-ga ku noqonaysaa correction-kan kan liquidity xoogaa yar kana ka haboon halkaa noogu aadi okay kana liquidity confirmation ku ah kadib waxaa xigo manipulation-ka in liquidity-ga meesha laga leexiyo obvious inta istaraatiijiyada concept ku shaqeyso unbaad asagana la macaamilaysa then waxaa xigo one more time shift in asagiina haddana
oo suuqii dib u jibiyey. So entryga scenario 1-kaaga halkaasuu ku aadaya marka. So intaan entrygan qaadanin, dhaqaaqa soo laabanaya entryga soo aadayo waa inaa ula degtaa isla asigii 1 minute in haddana lagaa joojiyo. Haddii 1 minute ay jirtay inuu qaab trend ah ku socday, bal aan isla fiirino si lamid ah oo conceptiga ah. 1 minute-kan wuxuu muhiim aad u yahay inaa ogaatid trenda kugu soo aadan in lagaa joojiyo. So 1 minute high high, then high low kale, then another high high, high low, high high. So 1 minute isla asigiina sida hadda USDJB aan ku sharay halkaasaa lagu joojiyey. So 1 minute shift meeshaad ku heshid all the rules from top to down waa haysataa. Kali waxaa u baahan tahay trade-kaaga inaad halkan ka salgaraysid, retest xataa aadan u baahnayn. Then short position targetkaaga ilaa 15 minute-kii new low-gii laga tago ilaa almost tiri qurux badan aad khasaarinaysay 60 bip. I think stop bipsiga always times 10 haddaad taqaanid sida loo calculate garay, haddaadan aqooninna times 180. So sida loo xisaabo goal bips calculationka you have to inaad koorsada siday tahay goal nidaamka uu ku shaqeeyo inaad waqti badan siisid. So one of the best trade asigana maanta uu bixiyey ani ahaan kana ila muuqatay. haddii hadda selkan continuationka uu sii wadana ani waxaan qaban min 15 min low kale in lagu sii dari karo ilaa xataa lasii boqon karo 1 hour-kii new low-ga si break of structure loo sameeyo. Haddii wax update kasoo kordhaana waa idinla soo wadaagi doonaa. laakiin the conceptiga haddii aad inaad goal trade garaysid and the conceptiga lacagaha aniga aan ku shaqeeyo the same scenario oo SMC ah waayo. balse ani ahaan haddii qofka bilaa uu yahay uusan suuqan weli lacag ka sameynin, please and please qaybtan kow joog 5 lacagood dollarka waqti sii dollarka kaadka qaabka suuqyada inducementiga entryga supplyga demandka manipulation waxaa baro conceptigaaga mar walbana practice badan iyo backtest badan ku samee kalsoonidiisa dhis kadib gool inaad aadid mise inaadan aadin just a choice. laakiin adigoo kuwan wax ka keeni waaye gool wuxuu ku bari doonaa casharka ugu adag forex waadna nici doontaa suuqa dhanaaba ka niijabi doontaa. So intaadan niijab u horseedin naftaada u horseed naftaada guul oo markaa consistency iyo discipline ay lacag kugu dhisi karto. haddii lacagan move-kooda yar yahay lotkaaga always fight risk xataa ka dhigo riskigaaga weyney kolay golla riska ogaadso kuwanba riska naftarkooda by multiplication of the lot unbaa weyneyne lot hadaa weyneysidna discipline xumo iyo risk management xumbaad isbartay waa meeshaad suuqa dhan ugu tegi lahayd waay. So sidaa awgeed more patience than making money. So inaad lacag uun sameeyo uun account pass mise ay kaa tahay ani waxaan qabaa longer term discipline this longer term journalkaaga ilaali longer term patience ilaali anything nafsadaada waxaa u diyaarisaa mid ay ku shaqeyn karto sanado soo socda inay suuqan sii joogto u diyaari. laakiin haddii ay tahay lacagaan rabaa volatility move aan rabaa suuqa sell iyo buy labadaba u shaqeeya u fur fiiri waxaad ka keentid. So sidaa maa marka conceptigan intaanan usii gudagalin marka USDJPY sidaan ka dhawaajinay one more time inay move-kan aadayso we knew it but let me be focus inteeda ugu badan. haddii marka zonka one more time lagu laabto sidaan sheegay dhaqaaqan hadda socda buyga 1 minute confirmation kasoo fiiri. So live halkaas uga baxaya haddii ay su-aalo jiraanna meeshaas ayaan kasii wadayna. Asalaamu calaykum.